goobtaan joognay waxa weeyaan dhidhiid baa la yiraahdaa waa degmada Quljeed ba hoos timaada waxa halka nala jooga ayaan agaasimaha guud ee biyaha nala jooga hay'adda concern wal waa ka fulinaysa hawshan maantana waxay halka ka hirgelinaysaa riig cilbiyood waxa ugu darnaa shanta goobood ee biyaha ka wado biyo dhaaminta concern ay ka wado waxa ugu darnaa abase iyo dhidhiid iyo culaacule saddexda goobood ayaa ceelkani ha u dhaxeeya mashruucani wuxuu ka mid yahay ceelku mashruuca weyn ee la yiraahdo brikiska ama bulsho u adkaysata dhibaatooyinka ayaa mashruuca Soomaaliya ahaan lagu yiraahdaa wax maalgelisa dawladda Ingiriiska ayaa maalgelisa ujeedadu waa laba ujeedada hadda mashruuca aanu soconaa in ceelkana la daafuro sagaalka barkadood ee dhamaatayna la soo eego mashruuca biyo xidheenka ee socdana oo isna wax badan anfici doonana islaan eegno qaabku yahay beertani Allah u naxariistay waxa lahaa aabahay xildhibaan Ibraahim Ciise Buux waxaanu maanta halkan aanu ka cadaynaynaa inaanu ugu deeqnay in ummadda degan deegaamadani ay moogtahay ay ka cabaan annagoo u bixinay waqfi moogtahay u socon doona aabahay waxaan leeyahay dhiijiga wad ku mahadsantihiin hawsha deegaanka waayo biyuhu waa nolosha koowaad wajacalna min al-maa'i kulli shay'in hayyan ilaahay deegaanka wadarka sidoo oo manaw yahay agaasimo guud cidii sahaamisay iyo hay'adda iyo wasaaradahaanba wax weyn buu ku soo kordhin doonaa ceelkani deegaankana waa deegaan aad loo degan yahay agaasimaha guud wuxuu loo ballan qaaday in saacadaha shaqada wasaaradda uu shaqeeyo khamiista galika dambe iyo jimcahana wixii kormeer ah ee dhow ay ka gaarsiin karo dadka ciyaanta ah halkan la jooga aad baan u salaamayaa waa maalin khamiisa waa goor duhura deegaanka iyo dhulku waa oomane waxa weeyaan waqti jiilaale bartankii baynu ku jirnaa Hargeysa ayaanu ka soo baxnay duhuradii markii shaqadii wasaaradda aanu soo dhameystirnay ee maanta waajibka nagu ahayd gelinka dambana waxaanu jecel lahay inaanu halkan idin la joogno si aanu u gudano waajibka naga kii saaran ee ah in biyo si uun la idinku raadiyo berri oo jimcaana waxaanu mari doonaa deegaanada kale ee gobolka Awdal ee hadhay ee u baahan inaanu soo aragno isla markaana ka daafurno mashaariicda biyood ee ka socda anagu dadkaanu u shaqeynaa idinkaanu adeegayaal idin nahay inaanu haraadkiina ka dadaalo habeen iyo maalinba u soconno oo u xiiqno sidii aanu idinka iyo inta kale reer Soomaaliland u haraatiri lahayn ilaahay baa wax haraatire ayaanu adeegayaal u nahay u dadaalnaa u soconnaa tukaha geedka ka dulciya xilba iga saaran marka fadhigu Hargeysa iskeenan iska jooga ay ma cuntanto ceelkaasaynu maanta daafuri doonaa ilaahay guul baynu ka rajaynaynaa deegaankan oo barwaaqoobaynu ka rajaynaynaa odayga loo waqfay Allah u naxariistee dhulkan sarfeygu soo saaray inay biyo ku jiraana way u ducaynaynaa isagii qoyskiisa dadka kala duwan reer Qulujeed ee halkan jooga ee dadaalka qaybta ka ahaa ee xildhibaanku ka mid yahay ee ragga la magac dhibay ka mid yihiina waan u mahadnaqaynaa waxaan leenahay dadaalkaasi wada xubnaha shaqaalaha wasaaraddeeda iyo agaasimayaasha halkan ila marayana waan ku majiiranayaa waan ku amaanayaa maalin jimca iyo maalin khamiisa iyagoo xaq u lahaa inay nastaan inaanay nasanaynin inay dadkooda iyo dalkooda u halgamayaan ilaahay baynu la kaashanaynaa waxaanu idinkula dardaarmaynaa ceelkaa marka biyo laga soo saaro inaad ku dadaashaan inaad dayac tirtaan oo ilaalisaan qiimaha biyuhu maanta wuu inoo cad yahay dadka reer miyigana aad buu yaqaanaa qiimaha biyuhu leeyihiin inaad gaadh ka haysaan oo gacmo wada jira ku ilaalisaan baanu idinkula dardaarmaynaa